Shariif Xasan Sheekh Aadan oo loo caleema saaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa rajo ka muujiyay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho 2016 wuxuuna xusay inuu danaynayo inuu tartanka madaxtinimada ka qayb galo. Shariif Xasan waraysi waxa uu siiyay Liban Cabdi Cali oo ka tirsan TV-ga Al-Xurra oo VOA ay bahwadaag yihiin. waraysigan ayuu uga hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxda Soomaaliya waxaana ugu horeyn la weydiiyay siduu ku qanciyay dhinacyada ka soo horjeeday ee diidanaa maamulka saddexda gobol ee isaga loo doortay. arrintaas waa hadal aan ka galeynaa dad badan oo aan kala hadalnayna waa jiraan kuwa dhiman oo badan oo aan kala hadli doonaa anaga waxaan rabnaa in laga heshiiyo maanta kulli in 6 gobol ma suuroobayso in la dhiso 3 gobol hore loo dhisay in saddexdaan la dhiso saddexdaas kalena ummadda Soomaaliyeed oo wada degto cid kasta ahaadeen dadka meesha wada dego inay baawar sheerin oo xalaal ah oo tixgelina tala iyo tusaale bale iyo xilal bale in laga galo lagana heshiiyo labada maamulna ay noqdaan laba maamul oo dirisa oo mataana oo dadka walaaleeya ayagana si xaq ah u wada dhaqmo dadka ku wada dhaqana nabad iyo barwaaqo si ay u noolaanayeen oo dadka loo horumarin lahaa nabadda loo sugi lahaa ka wada shaqeeyaan Shabeellada hoose waxa dega dadyo kala duwan waqtiyadii u dambeeyana dagaal xataa ka dhaceen oo beela isku dagaalay marka sideed rabtaa inaad u maamusho gobolkaas isaga ah sideed rabtaa inaad isugu soo dunto beela halkaas wada daga oo ay uga qayb qaataan maamulka beelaha dad un meel kale ka kala yimid waa dad Soomaaliyeed oo wada dhashay oo isla dhashay oo is dhalay oo wax walba isu ah oo isku diina isku aragtiya isku dhiiga isku dhaqana marka waxyaalo yar oo khilaaf jira anaga waxaan rabnaa khilaafkaas inaan ku bixino wada hadal iyo walaalnimo iyo ayadan qofna la riixeenin qofna aan la dulminaynin in walba xuquuqdiisa uu wada helo khilaaf xooggan ayaa ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha banaanku si weyn ugu soo baxay muddooyinkii dambe baarlamaankana saameyn ku yeeshay oo labadooda ay la kala jirsadeen ilaa 3 jeer isku dayo baarlamaanku inuu qabsoomo ah lagu fashilmay gudoomiyaha hore baarlamaanka soo noqotay siyaasadana galangal xoogana ku leedahay ilaa hadda maxaad kaalin ka qaadatay arintaas sida loo xalin lahaa sideed soo aragtaa khilaafka inkaas anaga wixii karaankayga waa isku dayay in uu dib u heshiisiin laga galo oo dadka walaalaha oo madaxdeena ah madaxdu ay ka heshiiyaan waxyaalaha differenceska oo jiro ilaa hadda lagu guuleysan laakiin haddana in lagu guuleysto taa laga maqbuusano oo wax iska dhici karo marka waxaan rajeynaa ayaga dalka u madax ah inay dalka iyo dadkana u naxaan ayaguna inta wada hadlaan ay heshiiyaan taas anaga intaas waa uga baaqa haddii ay suuroobi weysana inay institutionka baarlamaanka waxyaalaha loo sameeyay ka mid tahay waxaan oo kale haddii ay dhacaan baarlamaanka in lagu xalliyo parliamentariankana waxaan ka codsanaa si nabada ayagoo oo is dhowraayo is ixtiraamayo aragtidooda iyo kala fikirka ay kala qabaan waa wixii loogu talagalay baarlamaan inuu fikirkiisa uu kala duwanaado laakiin inay un haddana si tartiiba nabada ay cod ku kala baxaan su-aasheeda kale Shariif Xasan Sheekh Aadan waxay tahay waxaa la qorsheynayaa Soomaaliya in ay ka dhacdo doorasho 2016 waadna aragtaa sida hadda xaaladdu ay tahay khilaafaadka jira ma kula tahay inay suurtagal noqon karto Soomaaliya in doorasho laga qabto 2016 waxaan rajeynayaa in doorasho la qabto haddii uun qof iyo codkii la gaari waayana sidii horena dhaanta oo markii hore uun in dadka lasoo xulo odayaal uun lasu keeno ay soo xulaan ayaa baarlamaankii hore lagu keenay haddii la gaari waayo qof iyo codkii sidii horena aanan ahayn qof iyo codkiina aanan ahayn oo meel dhaxaa oo lisla gartay oo baarlamaanku weliba afkaar uu ka keenay inay ku dhacdo kulley mar walba waxaan la horeyn inay doorasho dhacdo oo isbedel u dhaco dadku Soomaalida haddii hadda uun la yiraahdo haddana doorasho ma dhici karto dhibaatooyin kale ka imaan karo marka waxaan rajeynaynaa in doorasho aad looga fakiray haddii qof iyo codkii la gaari waayana wax kaloo ka bedelan oo tii horena xoogaa ka casriyeysan oo ka horumarsan in la sameeyo 2004 ilaa hadda waxaad ku jirtay siyaasadda waxaad noqotay gudoomiye baarlamaan waxaad noqotay wasiir ra'iisul wasaare ku xigeen waxaad noqotay mar kale gudoomiye baarlamaan hadda madaxweyne maamul goboleed dad badan waxay aaminsan yihiin Shariif Xasan inuu ka soo siraad koray khilaafaad badan oo siyaasadeed oo dad badan oo isaga isku loodahayeen ay ku hareen ama ay saaxada uga baxeen sirta ka dambaysa maxay tahay arintaas wax siro ka dambeeya habeeraatay ma jirto anigu kulli waa un isku day
isku daygana ilaahay baa ama ogolaada ama diida wixii loo qoray unbaa la maraa laakiin hadda aniga wax gooni oo aan sameeyeyna ma jiraan wax gooni oo aan sameyn karaana ma jiraan laakiin aniga siyaasadda un shaqo kale hadda ma hayo un siyaasa shaqadeeda ay tahay marka nin walbana shaqadiisa marka inuu ku dadaalo intuu ka gaari karan uu ka gaaro uu dadaalkiisa tahay waliba marka inaan wax kale kusii gaarin waan rajeynaa insha allah ra-iisul wasaare ama madaxweyne inaad dalka ka noqoto ma ku qorshaysan tahay dhowaanta tusaale ahaan 2016 كل هذا السعادة هذا هرت من هذا ميل على إيد دورته 4 سنة لكن إن شاء الله وحي كدم بيانا وحي مو الإلهي يسيو مديدا أنا دال جلسي قلينا ورا